halkani waa GMN ee laanteeda af Soomaaliga. Waxaad nagala socon kartaan baraha bulshada sida Facebook iyo YouTube-ka. Xafiiska maamulka nabadda iyo amniga ee magaalada Addis Ababa ayaa sheegay in howlaha fulinta sharciga iyo maamulka wanaagsan ee la sameeyay intii lagu jiray sanad maaliyadeedka ay xaqiijiyeen nabad waarta. Xafiiska nabadda iyo amniga ee magaalada Finfinne Marwolidia Girma ayaa ka sheegtay furitaanka barnaamijka dib u eegista waxqabadka iyo bixinta aqoonsiga ee sanad maaliyadeedka 2018. Guulo muhiim ah ayaa laga diiwaangeliyey dhinacyada nabadda iyo amniga, maamul wanaagga iyo adeegga dadweynaha iyo wixii la mid ah. Waxaa kale oo ay xustay in munaasabadaha diimeed iyo kuwa dhaqanka ee lagu qabtay magaalada intii lagu jiray sanad maaliyadeedkan ay awood u yeesheen ay si nabad ah u martigeliso magaaladu malaayiin ka qaybgalayaal ah. Waxay tilmaamtay in tani ay si weyn uga qayb qaadatay dhigista magaalada Addis Ababa astaan nabad iyo midnimo qaran iyo sidoo kale meel la doorbido dalxiis iyo shirarka caalamiga ah. Waxayna tilmaamtay in shaqada amniga ee ku salaysan ka qaybgalka dadweynaha ay waxtar u leedahay xoojinta nabadda waarta ee magaalada. Waxayna sharaxday in guusha lagu gaadhay iyadoo bulshada laga dhigay kuwa leh mas'uuliyadda nabadda. Waxayna sharaxday in shaqo wax ku ool ah laga qabtay si loo hubiyo adeegyo cadaalad ah iyadoo loo marayo isku dabaridka gaadiidka, xakameynta raashinka cuntada, wanaagga isgaarsiinta iyo hay-adaha kale ee xubnaha ka ah waaxda. Barnaamijyo aqoonsi iyo abaalmarino ayaa la guddoonsiiyey hay-adaha ka gaadhay waxqabadka heer sare sanad maaliyadeedkan ee 2018. Shirkadda isgaarsiinta ee Ethio Telecom waxay ku dhawaaqday in ay diiwaan gelisay dakhli dhan 215.8 bilyan oo bir ah sanad maaliyadeedkii ee 2018. Tirada macaamiisha Ethio Telecom ayaa gaartay 90.1 milyan, halkii isticmaalayaasha Telebir ay gaareen 60.5 milyan. Shirkadda isgaarsiinta Ethio Telecom waxay soo bandhigtay warbixinteeda waxqabadka sanad maaliyadeedka ee 2018 iyo qorshaheeda ee sanadihii higa ee ilaa laga gaaro 2028. Sida laga soo xigtay madaxa shirkadda isgaarsiinta Ethio Telecom Marwo Firyota Miru, qorshuhu waa in la gaadho 100 milyan oo macaamiil ah iyo 75 milyan oo isticmaalayaasha Telebir ah marka la gaaro 2028. Sanad maaliyadeedkan ee 2018 603 goobood oo cusub ah oo mobile ayaa la howlgeliyey, taasi oo ka dhigaysa tirada guud 10,613, waxayna gaaraysa 1.5 milyan oo isticmaalayaal cusub ah. 264 magaalo oo dheeraad ah ayaa ka faa'iidaystay adeegyada 4G-ga. Caymiska 4G-gana wuxuu gaaray 82%. 7 magaalo oo cusub ah ayaa sidoo kale helay adeegyada 5G-ga, taasoo ka dhigaysa tirada guud ee magaalooyinka ka faa'iidaysanaya ee 5G-ga 33 magaaladood. Shirweynihii wadatashiga qaranka ayaa si guul leh u socda. Gudoomiyaha guud ee guddiga wadatashiga qaran Professor Masfin Araya ayaa sheegay in shirweynihii wadatashiga qaranka uu si guul leh u socdo. Shirweynihii wadatashiga qaranka Itoobiya ayaa si guul leh u socda, ayuu yiri gudoomiyaha guud ee guddiga wadatashiga qaranka Itoobiya Professor Masfin Araya. Gudoomiyaha guud ayaa warbaahinta siiyey bayaan ku saabsan geedi socodka shirka wadatashiga qaranka Itoobiya. Saxaafadeedkiisa ayuu ku sheegay in shirka wadatashiga qaranka uu si guul leh u socdo. Wuxuu sheegay in wadatashiyadu ay sii wadeen in ay ka wada hadlaan ajandayaal loo xilsaaray kooxo ahaan. Wuxuuna sidoo kale tilmaamay in wadatashiyadu ay si xor ah u wadaagayaan fikradahooda, taasoo abuuri doonta madal loogu talagalay
wejiga xiga ee wadahadallada. Wuxuuna sidoo kale ku booriyey in laga digtoonaado macluumaadka lagu faafinayo baraha bulshada iyo in macluumaadka saxda ah laga helo guddiga oo kaliya ah. Shirka wadatashiga qaranka Itoobiya ayaa socday tan iyo 8 bisha Xamle ee 2018 oo hadda aanu ku jirno. Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Ruushka ayaa sheegtay in Sergey Lavrov ugu digay Mareykanka inuu sii wado hubka u dirayo Ukraine, isaga oo ku tilmaamay arrintaasi mid aan la aqbali karin. Bayaan ay soo saartay wasaaraddu ayaa lagu sheegay in Lavrov uu xoghayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio u sheegay in sii wadista hubka loo dirayo Kyiv ay tahay arrin aan la aqbali karin. Kulanka labada wasiir ayaa ka dhacay magaalada Manila intii uu socday shirkii wasiiradaha arrimaha dibadda ee ururka ASEAN. Intii uu kulanka socday, Lavrov wuxuu sidoo kale dhaliilay waxa uu ku tilmaamay siyaasadaha xasilooni darrada abuuraya ee dalalka Yurub, isagoo sheegay in ay weli sii wadayaan in ay Ruushka gaarsiiyaan guuldarro istiraatiiji ah. Kulankan ayaa ahaa kii ugu horreeyay ee rasmi ah ee u dhexmaraya wasiiradaha arrimaha dibadda ee Ruushka iyo Mareykanka tan iyo Sebtembar sanadkii hore. Wuxuuna ku soo beegmay kulankan xilli ay Washington diiradda ka saartay dhexdhexaadintii dagaalka Ukraine una jeysatay hadda dagaalka ee Bariga Dhexe. Dhanka kale, wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa bayaan kooban ku sheegtay in Marco Rubio iyo Sergey Lavrov ay ka wada hadleen xiriirka u dhexeeya Mareykanka iyo Ruushka iyo sidoo kale baahida loo qabo in la soo afjaro dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine.